daawadayaal war degdega dalka Turkiga oon ku wada suganahay laakiin Soomaalida ku nool waxaa jira musalsal maalmahan oo dhan ay ku soo mushin gareynayeen musalsal waxaa jira dalka Turkiga lagu turjumo oo kamid ah musalsalada dadka Turkidu ay aad ugu jecel yihiin ee wuxuu dhulka la galay sharaftii wadankeena Soomaaliya waan la wada soconaa anaga dalkeena Soomaaliya ama ha burbursanaado ama ha xumaado ama sidoo doona ha noqdo haddii wax laga sheego waa wadankeena cid wax la ka sheegaysana yani de way ku qaldan tahay taas oo qof kasta oo wax ka sheegaya isaga ama laabtiisa ku haysta ama si kale dadkii Soomaalida walina dadka dalka Turkiga gudihiisa ku nool dayagu waa la iska dareemay xaaladda dalka Turkiga dadka banaankiisa jooga ayaa waxay si weyn uga gilgisheen hadal daqiiqada 1 saac iyo 45 daqiiqo marka ay marayso ay labada actor ay dalka Soomaaliya dalkeena Soomaaliya ay si weyn ugu gafayaan san hore oo idin ku soo sheegay dalkeenu ama xumaada ama wanaagsanaade oo mid anaga noqosayso dalkeenu waa dalkeeni waxay sheegeen ama labadii saaxiibka waxay hadal marka si aan si tixraacayna hadalkan ay isku leeyihiin waa hadal dadka Turkida dhexdooda si weyn caan uga ah oo dadka saaxiibada iyo sidoo kale dadka maaragtay marka ay isla hadlayaan qof hadduu tusaalahaan yiraahdo bari waxaan tagayaa meel heblaayo waxaan helayaa lacag malaayiin dollar waxaan haystaa waxaan oo kale ay kelmadan isku yiraahdaan bal horta muuqaalka ayaan daawadsiin doonaa oo soo jaray marka hore daawada Hayaller Paris, gerçekler Somalia, Kaya kardeş. haddaba hadalka uu yiri ayaa marka la turjumo ayaa waxay noqonaysaa nolosha aad suuraysanayso waa Paris oo kale waana mid aad u qurux badan laakiin xaqiiqda aad ku nooshahay waa midda Soomaaliya oo kale arintaas oo ku liidayo markaasi labadan actor ay ku liidayaan dalkeena Soomaaliya okay haddaba halka markay marayso dalka Turkiga wax uu anaga filmaantayna wadankii lagu matalo ama lagu jilo hal yar oo eray oo khalad ah ama xumaan ah wadanka Turkiga nagama gayo waana wadan yani muslim waana wadan ixtiraam weyn u hayno oo yani marka waxyaabo kale dhan laga yimaado waxa jirta xilli wadankeena Soomaaliya uu la daala dhacay waxyaabo fara badan oo sida abaartii oo kale oo ra'iisul wasaare marka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan mar uu wadan kale uusan madaxweyne iyo sidoo kale qof xilaya uusan imanayn oo waqtigaas yimi sharaf weyn baan u haynaa shacabka Turkiga iyo sidoo kale madaxweynaheedaba laakiinse inay sidan oo kale ay tusaale xun noogu soo qaataan waa mid markaasi kaafi kala dheeriya musalsalkan waxaa lagu turjumaa luqadaha ugu faraha badan hadda waxaan fiirinayay inta daawatay malaha 9 milyan ku dhawaad 8 milyan yaalay dad aad u fara badan ayaa markaasi ku taxan de in wadankeena Soomaaliyana la suurad xumeeyo aad iyo aad baan uga soo horjeednaa waana cambaaraynayna marka si weyn ayay baraha bulshada loogu falanqeynay Soomaaliduna aad bay u falanqeynaysay waxa sidoo kalena jira dad la yiraahdo commentiland oo dhalinyaro ah oo meeshii intay tageen foodo ka kiciyo commenti ilaah kaga siiyay marka saaxiibel istajiya xaaladda dajiya marka saaxiibel muuqaalka si share gareeya saaxiibadaada maalmahan oo dhan ama se maalmahan way igu soo share gareynayeen oo igu soo taageereynayeen laakiin se xoogay waqtiga iyo xaaladaha marka hadda baan chance u helay waa mahadsantiin dalkeena Soomaaliyana cidna waxba kama sheegi karto waana wadan markaasi jira waxaan u rajeynayaa in Ilaahay wax kasta oo dalkeena Soomaaliya dhibaato haysatana in Ilaahay ka dulqaado saaxiibel waan salaamay bye bye